بسم الله الرحمن الرحيم waxaan rabaa inaan ku soo bandhigo halkani gabay aan ugu magac daray Facebook kana alifay aalada internetka qaybteeda cusub ee loo yaqaano Facebook gabaygan waxa uu ka hadlayaa arrimo badan aan dhahe oo si dhab ah ay ula kulmaan dhalinyarada ama dhamaan bulshada qaybaheeda kala duwan ee caalamka maadaama aan ahay nin dhalinyaro ah arrimaha bulshadana waxyaabo badan waxaan go'aansaday inaan gabay ka diyaariyo gabaygaas oo aan ugu magac daray sidaan hore idinku sheegayba Facebook haddii aan gabaygii guda galo waa sida tan anigoo aan waqtiga idinka sii lumin fariin caanshaq aan ugu farxayn Facebook adiga leh jacayl aan fogaanayn marnaba Facebook adiga leh fikrad uu ruux leeyahay akhriso Facebook adiga leh fadhigood ka daashaa iyo faraha Facebook adiga leh fariin joogto ah oo la isu diro Facebook adiga leh farta doonto waad qori kartaa Facebook adiga leh fawda aan dhamaanayn marnaba Facebook adiga leh fidna iyo masayr aan dhamaan Facebook adiga leh ruux filim ka arag weli ka fikir Facebook adiga leh faadumana yay tahay ii sheeg Facebook adiga leh faraantigad wadato yaa ku sii Facebook adiga leh fududayso fodlay ku jecel Facebook adiga leh farxad iyo murugo kala fogeyn Facebook adiga leh ha fogaanin waan soo geliye Facebook adiga leh foonkayga qoro soo falash Facebook adiga leh foojignaan marnaba faaruqayn Facebook adiga leh iga fiiri inaan ahay online Facebook adiga leh foto saaro aad adi lahayn Facebook adiga leh ruuxaad filayn meel ka fago Facebook adiga leh foom buuxi falimaane geli Facebook adiga leh fan samayso ee noqo fanaan Facebook adiga leh intaasi waxaa ku dhan gabaygii aan ugu magac daray Facebook anigoo ah aan idin soo jeedinayay soona alifay anigoo ah Axmed Xasan Qaylay kuna magac dheer Abwaan Yare waana mahadsantihiin dhamaantiin